waalid assalaamu calaykum. Maxaan mar walba uga hadlaa middle school? Maanta waxaan rabaa in aan ku tuso daaqad yar kaa tuso 5% cadaadis pressure iyo cidlada ay gabdhaheenu dareemayaan iyadoo middle schoolka wiilal iyo gabdhaba noo tagaan anu gabdhahan diiradda sii saaraya waayo waxay mudan yihiin in la ilaaliyo. Waxaan ka hadlaynaa waalid, waxaanu ka hadlaynaa waa middle school. Waxaan rabaa marka inaan kuu sawiro muuqaal si aad u fahamto waxaan ka hadlayo oon sula soconno. Midda kalena aad u fahamto halganka gabadhan yar ay wajahayso si markay u yartahay haddii xitaa xalka aynaan hayn aynagu wada baraarudi karno insha allahu tacaala. ilaahina gabdheena xifdiyo. U fiirsa waalid, gabadhan Faatima la yidhaha waa gabadheeni 8 jir 9 jir 10 jir 11 jir middle school bay aad xijaab baynu xidhnay bannaankay taag baskii bay sugaysaa waa subax qabow xaggaa waxaa taagan koox kale oo isku iskuul yihiin oo caddaan iyo madow iyo latino isku jira oo markaa wiilal iyo gabdho isku dhex jira. gabdha dabagaabay gasha, gabdha galoo saraawiil jeans oo jeexjeexan xidhan, wiilal iyo gabdho fara ka ciyaaraya, wax walba ku hadlaya, laga yaabo wax badan aan xeerinayn. anshaxa iyo edabtu markaa ay ku yar tahay gabadhaada u fiirso markay dareemaysaa markaaba inay iyadu gooni tahay, waa cid lay dareemitaa, inay ka duwan tahay dareemitaa. way arkaysaa daaqada hooyadeed baa kasoo eegaysa, naa baskii ma yimid dhahaysa. Faatima xijaabkaasi xiranta meeshiisaa u taagan, baskii baa yimid waalid. marka la galo waa meelaha u horeeya vaybka lagu cabo, bahalkan la qiijiyo. middle schoolka basaskaa lagu cabo, qofkaan ogeyn ha ku baraarugo. gabadheenu waxay dareemaysaa inay cidlo tahay, keligeed baa fadhida. marka music baa la dhegaysan, f baa la isticmaali, eryo xunxun baa la isticmaali, way fadhidaa. vaybkaasaa la cabaya, way fadhidaa. waxaa laga yaabaa in la isdagaalo oo qofka dhulka dhigo dhowr qof ay duubaan, taleefonka ka duubaan oo laysku dirdiro oo waxa cyberbullying dira. way fadhidaa, way baqaysaa. waxaa u sawirmi haddii adiga lagu gacan qaado oo lagu sawiro oo lagu duuba ka waran. iskuulkii bay aad. waxaa laga yaabaa gabadhan inay mar dhow waddan ka timid oo waalidkeed yimid, luqadu ay cidhiidhi ku tahay. gurigii ma joogo hooye aba luqadii ku dhaamo oo garab istaagi kara, cidhiidhi bay dareemaysaa. iskuulkan markay aado qof walba saaxiib lama noqon karto oo annagii kasoo hadalnay isgo-doomin iyo inay go-don tahay dareemi kara. bullin baa ku iman kara xijaabkeeda, erye aan habboonayn, way cabsanaysaa, qaab loo hadla ma taqaano, calaamadihii bullinkana waalidku ma yaqaano. maxay dareemaysaa? cidlay dareemaysaa. marka meesha la yimaado iskuulka waxaa laga yaabaa in gabdhaha kale ay hadallo aan munaasab ahayn ku hadlayaan, iyadoo waxaa maqaano cidlay dareemaysaa. waxaa laga yaabaa guriga hooyo iyo aabba wada joog inaanay jiro, ama aabba nolosheeda qayb ka mida inuunan jiro, ama buuq inuu jiro, ama inay reero kale intay guriga yimaadeen marti ah sidii dhaqankeena ahayd, meeshay seexanaysay wax cidhiidhi ay dareemayso, gurigii space ku filan aanay lahayn. 5 maalmood waxay ku jirtaa halganka. sabti axad ma naso Faatima dugsiga qur-aanka u kalahdaa waa la jaq. waxaa laga yaabaa inuu waxba dhigo macallin markaa laga yaabo in dabeecadiisu adag tahay, halgankeeda uunan fahmayn, isku luqad mararka qaarkood aanay ku hadlayn sidii macallimiinteeni waddanka qur-aanka khayr allaha siiyey oo kale ula hadlay ilmo meeshan ku dhashay. waxaa laga yaabaa ardayda dugsiga qur-aanka laftoodu inay bulli garanka. Faatima waxay gooni la tahay halganka. Faatima 8 9 10 jirta waxaa hoos ugu qubanaya ilmada. waxa aan rabo waalid inaanu ku baraarugno waa in yar oo ka mida halganka gabadheenaasi ay wajahayso. waxaan rabaa marka waalid kow inaan ku baraarugno, 2 inaan xalka isla raadino, 3 mar haddaan ku baraarugnay bal gurigii inaan uga dhigno guri qabow oon lagu qaylinayn, oon magacyo xunxun loogu yeedhaynin, oon la fadeexaynaynin, oo boorsada laga qaado, oon waxyaabo badan oo khalad oo ka dhaca loogu dulqaadan karo, oo ina abtideed ama ina adeerkeed ama wixii jooga la geyn karo, oo fasaxyada markii la gaaro balse usoo nasato qaraabada Minnesota goboladan kale Canada la geyn karo, oo mar walba lala daba taagnaan karo, oo hadday suuragal tahay hooyadii abu intay lacag seef garayaan cumrada geyn karaan, oo sadaqa laga bixin karo, dadkii ehelka loo diri karo, iigu duceeyo la odhan karo. hadafka aan ka leeyahay marka halganka middle schoolka jiray gabdhaheenu wajahayaan taasaa ka mid a. marka waxaan ilaahi subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu gabdhaheena xifdiyo iyo wiilasheena inagoo dhan, innagana ina siiyo aqoontii, garashadii, xigmadii iyo sabirkii aan ku korin lahayn. fadlan muuqaalkan la wadaaga waalidiinta Soomaaliyeed, ogaadana janaalka la yidhaha Waalid Legacy Channel ee YouTube-ka ku jira. waa janaalan waalidiinta u samaynay, halkaana kala socda. wasalaamu calaykum waraxmatullah.